haddii la laba gobol ay ka badan aan maamul goboleed noqonayn marka dawladda dhinacan inay kaga shaqeyso in wax gobol iyo wax ka sii yaray dawlad goboleed laga sii dhigo meelna ay nooga soo qortay dhaar optional ka dhig inay wax ku jiraan baad moodaa marka ani waxa isleeyahay meesha guddigaas in la saxo waaye laba gobol iyo ka badan in laga dhigo gobol gooni isu taagi kara oo dawlad goboleed ahaan ma jiro hukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maamulaysa gobollo badan oo dawlad goboleed laga dhigaa jira dawladda maxay u maamuli weysay dastuurkeena saan uga dhigayaa dawlad goboleedyada aanan buuxin shuruuda ah laba gobol ka badan maxay dawlad goboleed dawladdu uga dhigaysaa uga shaqeynaysaa maxay dawladdu u sii maamuli weysay ilaa laga helaayo laga dhameystiraayo ay sida ay u dhameystirmayso ani arinta waxaan isleeyahay iyada nafteeda waxay u baahan tahay in wax la iska yiraahdo waxa meesha ku jira oo qodob muhiim ah in laga doodo mudan dood adagna laga galo waa maqaamka caasimadda guddigu waa qodobka 63aad laba hulasha la soo diyaariyay cilmi baaris ama tirakoob guddigu sameeyay oo bulshada Soomaaliyeed dawlad goboleed ay ku sameeyeen bay halkan ku soo gudbiyeen caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa Muqdisho mudday ahayd ummadda Soomaaliyeed ay wada joogaan in horta dood la soo geliyo la maalin walba caasimadan seelaga samgo dawlad goboleed baa kan baa ana waxa isleeyahay iyada nafteeda waxa la wada leeyahay waxyaabo aan la fahmi karin ay iska tahay anigu shakhsiyan caasimadda Soomaaliya waxaan qabaa Muqdisho horta mid baan qabaa markuu horeysay in dhowrkii sanaba meel kamid ah wadanka ay noqoto caasimad ama 10 sano ama 20 sano wadanka ku dhismaaya ummadda cadaalad ku helaysa resourceski awoodda dawladda laga wada faa'iideysanaya in hal gobol la taagnaado waligeed ani waxa isleeyahay waxa ka qurux badan in la wareejin karo 10kii sanaba 20kii sanaba at least meel lagu wareejin karo caasimadda Soomaaliyeed waxa la yiri dad baa aad baa loogu doodaa Soomaaliya oo dhan degan dad baa matalaadeeda ka hadla horta matalaad aan halkan ku farino waa mid noocee ma mid gobol ba ma mid degma ma mid qabiil ba Soomaalidu waa 4.5 beelood yani waxba dhiin waa 5 beelood 5 beelood wax lagu qaybsaday ani waxaan qabaa hadii matalaad la rabo waliba aqalka sare waan u tagi doonaa qodobkiisa maqaamka caasimadda waxaan leeyahay ani Muqdisho waxaan soo jeedinaa xulashada koowaad oo ah magaalo madaxdu waxay noqonaysaa gobol magaalo madax u ah dawladda federaalka boqolkiiba 50 ray aruurin la sameeyay dadku taas ay taageereen ani taas baan soo jeedinayaa laakiin hadii la rabo optionka kale oo leeyahay dawlad goboleed leeyahay waxa isleeyahay gobol iyo maxay ahay dawlad goboleed iyo caasimad iskuma qaadan karto suurtagal ma noqonayso markaas caasimadda meel kale loo raadiyo xamar dawlad goboleedkeedii haday ay sheegay sidii ay noqon laga yeeli karo marka laga doodo marka taas baan ka qabaa ra'yigayga mid oo mid kale waxa jirta heshiisyada la saameynta siyaasadeed dhaqaale guud u dhaxaya dawladda federaalka iyo dawlad goboleed dawlad in heshiisyo ay galaan oo haddana baarlamaan federaal la sii keeno oo heshiiskaas laga saxiixo heshiisyo caalami ah saxiix jirnay halka loo keeni jiray laakiin heshiis isla wadankii gudihiisa in baarlamaanka federaalka la keeno waxa baahida keentay ma aqaan arintaas waan soo gabagabeynayaa qodob kale waxa la yiri madaxa oo saddexaad ah qodobka 67aad farqada labaad waxa la yiri qodob kasta oo kamid ah dastuurka dawlad goboleedyadu oo aan waafaqsanayn dastuurka federaalka wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan soo dawlad goboleedyada dastuurkooda mararka qaar waxyaabo u gaar ah soo ma jiri karaan oo dawladda federaalka dastuurka aanan ku wada jirin oo dhaqan oo horumarineed oo saasa haddii reer koonfur galbeed ay dastuurkooda ku qortaan in luqadda ay sheegay luqadda Soomaaliga maayga qaybtiisa in luqadda koowaad ay noqoto state-kaas looga hadlo ma dastuurku ka hormaanaya ma la diidaya haddii dhaqankooda u gaarka ay horumarinayaan in la diido miya ana waxaan qabaa waxyaabaha aanan dhibaato ku ahayn oo ka hormaanayn kaliya kama mid noqon karaan ayaan la dhihin laakiin dawlad goboleed waxyaabo qaar ah waxay ka mid noqon kartaa dhaqamada afaf badan baa u baahan in la horumariyo dawlad goboleed inay horumariyaan u baahan tahay marka taas in la meesha lagu soo qoraa wax ka hor imaan kara lama sameyn karo taasna iyada
in at least la sii faahfaahiyay u baahan tahay haddaynan wax dhibaato kala keenaynin oo dawlad goboleedkaas horumarinayeen in laga joogo waan soo gabagabeynayaa waxaan rabaa meesha tana awoodaha dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka iyo dawladaha hoose oo la soo kordhiyay halkaas dawladda federaalka waxaan ogeyn 4 awoodood baa horey u lahayd oo u madax banaanta laakiin hadda maxaa la sameeyay 44 awoodood baa la geeyay dawladda federaalka state-ku waxa la yiri 29 awoodood oo waliba lala wadaagayo dawladaha hoose awoodo la siyaasi jiray isla waxa la yiri awoodaha wadaaga waxa kamid ah dawladii hoose dawladda federaalka la maamulaysa oo awoodaha wadaaga kamid ah ani arintaas meelaha ay ku jirto waxaan leeyahay awoodahan oo aad kala wada tirada badan oo dawladda federaalka lagu soo wada ururiyay waxyaabihii siyaasi iyo saameyn wadanka aanan ku lahayn oo deegaanadaas sida waxa la yiri webiida la maamulaa wadooyinka meesha maray waxyaabaha la maamulay kamid tahay dhalashada iyo sugnaanta degmada ay bixinaysaa waxa leeyahay dawladda federaalka maamulaysa arinkaas waxaan rabaa in wax laga bedel awoodaas lagu laabto qodobka ugu dambeeyay tan guddiga doorashooyinka oo hal guddi oo 3 xeer awoodda federaalkana waa geliseen kan state-kana waa geliseen qodobkaas waxaan rabaa inay meel u daysiin guddi doorasho oo waxa la yiri 3 heer ah waxa la geeyay state-kana ku jira isla federal level wal ku jira marka halka soo reeba kaas waa la dhibsanayaa oo arkay dadku way ordayaan orod badan baa meesha ku jira marka taasaan ay sheegay intaasaan ku soo koobaya waxa isleeyahay aad baad u maasantiin baanan hadii la laba gobol ka badan aan maamul goboleed noqonayn marka dawladda dhinacan inay kaga shaqeyso in wax gobol iyo wax ka sii yaray dawlad goboleed laga sii dhigo meelna ay nooga soo qortay dhaar optional ka dhig inay wax ku jiraan baad moodaa marka ani waxa isleeyahay meesha guddigaas in la saxo waaye laba gobol iyo ka badan in laga dhigo gobol gooni isu taagi kara oo dawlad goboleed ahaan ma jiro hukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maamulaysa gobollo badan oo dawlad goboleed laga dhigaa jira dawladda maxay u maamuli weysay dastuurkeena saan uga dhigayaa dawlad goboleedyada aanan buuxin shuruuda ah laba gobol ka badan maxay dawlad goboleed dawladdu uga dhigaysaa uga shaqeynaysaa maxay dawladdu u sii maamuli weysay ilaa laga helaayo laga dhameystiraayo ay sida ay u dhameystirmayso ani arintan waxa isleeyahay iyada nafteeda waxay u baahan tahay in wax la iska yiraahdo waxa meesha ku jira oo qodob muhiim ah in laga doodo mudan dood adagna laga galo waa maqaamka caasimadda guddigu waa qodobka 63aad laba hulasha la soo diyaariyay cilmi baaris ama tirkoob guddigu sameeyay oo bulshada Soomaaliyeed dawlad goboleed ay ku sameeyeen bay halkan ku soo gudbiyeen caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa Muqdisho mudday ahayd ummadda Soomaaliyeed ay wada joogaan in horta dood la soo geliyo la maalin walba caasimadan seelagsan dawlad goboleed baa kan baa ana waxa isleeyahay iyada nafteeda waxa la dan leeyahay waxyaabaha la fahmi karin ay iska tahay anigu shakhsiyan caasimadda Soomaaliya waxaan qabaa Muqdisho horta mid baan qabaa markuu ugu horeysay in dhowrkii sanaba meel kamid ah wadanka ay noqoto caasimad ama 10 sano ama 20 sano wadanka ku dhismaaya ummadda cadaalad ku helaysa resources-kii awoodda dawladda laga wada faa'iideysanaya in hal gobol la taagnaado waligeed ani waxa isleeyahay waxa ka qurux badan in la wareejin karo 10kii sanaba 20kii sanaba at least meel lagu wareejin karo caasimadda Soomaaliyeed waxa la yiri dad baa aad baa loogu doodaa Soomaaliya oo dhan degan dad baa matalaadeeda ka hadla horta matalaad aan halkan ku fadhino waa mid noocee ma mid gobol ba ma mid degma ma mid qabiil ba Soomaalidu waa 4.5 beelood yani waxba dhiin waa 5 beelood 5 beelood wax lagu qaybsaday ani waxaan qabaa hadii matalaad la rabo waliba aqalka sare waan u tagi doonaa qodobkiisa maqaamka caasimadda waxaan leeyahay ani Muqdisho waxaan soo jeedinaa xulashada koowaad oo ah magaalo madaxdu waxay noqonaysaa gobol magaalo madax u ah dawladda federaalka boqolkiiba 50 ray aruurin la sameeyay dadku taasay taageereen ani taas baan soo jeedinayaa laakiin hadii la rabo option-ka kale oo leeyahay dawlad goboleed leeyahay waxa isleeyahay gobol iyo maxay ahay dawlad goboleed iyo caasimad iskuma qaadan karto suurtagal ma noqonayso markaas caasimadda meel kale loo raadiyo
xamar dawlad goboleedkeedii hadday ii sheegeen sidii ay noqon laga yeeli karo marka ha laga doodo marka taas baan ka qabaa ra'yigayga mid oo saala mid kale waxa jirta heshiisyada la saameynta siyaasadeed dhaqaale guud u dhaxaya dawladda federaalka iyo dawlad goboleed dawlad in heshiisyo ay galaan oo haddana baarlamaan federaal la sii keeno oo heshiiskaas laga saxiixo heshiisyo caalami aan saxiix jirin halka loo keeni jiray laakiin heshiis isla wadankii gudihiisa in baarlamaanka federaalka la keeno waxa baahida keentay ma aqaan arintaas waan soo gabagabeynayaa qodob kale waxa la yiri madaxa oo saddexaad ah qodobka 67 farqada labaad waxa la yiri qodob kasta oo kamid ah dastuurka dawlad goboleedyadu oo aan waafaqsanayn dastuurka federaalka wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan soo dawlad goboleedyada dastuurkooda mararka qaar waxyaabo u gaar ah soo ma jiri karaan oo dawladda federaalka dastuurka aanan ku wada jirin oo dhaqan oo horumarineed oo saasa haddii reer koonfur galbeed ay dastuurkooda ku qortaan in luqadda ii sheegay luqadda Soomaaliga maayga qaybtiisa in luqadda koowaad ay noqoto state-kaas looga hadlo ma dastuurku ka hormaanaya ma la diidaya haddii dhaqankooda u gaarka ay horumarinayaan in la diido miya ana waxaan qabaa waxyaabaha aanan dhibaato ku ahayn oo ka hormaanayn kaliya kama mid noqon karaan ayaan la dhihin laakiin dawlad goboleed waxyaabo qaar ah waxay ka mid noqon kartaa dhaqamada afaf badan baa u baahan in la horumariyo dawlad goboleed inay horumariyaan u baahan tahay marka taas in la meesha lagu soo qoraa wax ka hor imaan kara lama samayn karo taasna iyada in at least la sii faahfaahiyay u baahan tahay haddaynan wax dhibaato kale keenaynin oo dawlad goboleedkaas horumarinayeen in laga joogo waan soo gabagabeynayaa waxaan rabaa meesha tana awoodaha dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka iyo dawladaha hoose oo la soo kordhiyay halkaas dawladda federaalka waxaan ogeyn 4 awoodood baa horey u lahayd oo u madax banaanta laakiin hadda maxaa la sameeyay 44 awoodood baa la geeyay dawladda federaalka state-ku waxa la yiri 29 awoodood oo waliba lala wadaagayo dawladaha hoose awoodo la siyaasi jiray isla waxa la yiri awoodaha wadaaga waxa kamid ah dawladii hoose dawladda federaalka la maamulaysa oo awoodaha wadaaga kamid ah ani arintaas meelaha ay ku jirto waxaan leeyahay awoodahan oo aad kala wada tirada badan oo dawladda federaalka lagu soo wada ururiyay waxyaabaha siyaasi iyo saameyn wadanka aanan ku lahayn oo deegaanadaas sida waxa la yiri webiida la maamulaa wadooyinka meesha maray waxyaabaha la maamulay kamid tahay dhalashada iyo sugnaanta degmada ay bixinaysaa waxa leeyahay dawladda federaalka maamulaysa arinkaas waxaan rabaa in wax laga bedel awoodaas lagu laabto qodobka ugu dambeeyay tan guddiga doorashooyinka oo hal guddi oo saddex xeer awoodda federaalkana waa geliseen kan state-kana waa geliseen qodobkaas waxaan rabaa inay meel u daysiin guddi doorasho oo waxa la yiri saddex heer ah waxa la geeyay state-kana ku jira isla federal level wal ku jira marka halka soo reeba kaas waa la dhibsanayaa oo arkay dadku way ordayaan orod badan baa meesha ku jira marka taasaan ii sheegay intaasaan ku soo koobaya waxaan isleeyahay aad baad u mahadsantihiin